بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada asxaaba insha Allah taala maanta waxaan sameysanaynaa soo dhaweyn yaab leh oo maaragtay ilmahan eedada u ahay oo la soo celiyay oo Ilaahay maaragtay oo noo soo celiyay oo Ilaahay uga mahad celineen oo dadka islaamka oo Soomaaliyeed aan leenahay waa mahadsantiin ducadiina aad u mahadsantiin maaragtino dadkii dhan oo faataxada noo soo mareen oo waxaan ku dhahay Ilaahay noogu soo baryaayeen in ilmaheena dib noogu soo celiyo aan leenahay maanta waa mahadsantiin kulli meeshaan waxaa noo saaran dulsho maasha Allah Muha Maxamed iyo Ibrahim Maryama aan ugu talagalay ilmahan eedada u ahay waxaan leeyahay damacaan soo noqod wanaagsan welcome home maasha Allah kusoo dhawaada gurigiina maasha Allah sida dulshada aan ku qoray Maryam Maxamed soo dhawaada aan ku qoray maasha Allah ee damacaan waxaan leeyahay waan idin jecelnahay kulligeen hadaan nahay maaragtay familka ama dadkoo dhan iyo maaragtay intii maqashaba waalid iyo ilmahooda ayaa la kala kaxeeyay dadka maqleen oo dhanba waan idin jecelnahay eedo insha Allah marka maanta waxaan idin sameynayaa alaabtan asxaabe insha Allah ciyaalkayga aan ugu talgalay marka waad mahadsantihiin daawasho wanaagsan oo wacan video intaan bilaabin laag dhaha subscribe waa mahadsantihiin insha Allah maasha Allah halkaan waxaa noo saaran asxaabe sa u jeedaanba maaragtay wixii aan ka diyaarsan lahayn dulshadeenan aad ka maaragtay macaanka badan oo quruxda badan waxaan ka diyaarin lahayn ayaa noo saaran halkaas waa koob caano ah meeshan waxaan ugu jirta 7 xabo ukun ah waxaan ugu jirta halkaas baking powder 2 qaade ah qaada hafkeed oo maaragtay cusbo ah iyo maxaa la yiraahdaa qaadada foodeeda hore oo aydan carfise ah insha Allah marka hadda waxaan sameynaynaa sokortin waa taasaa waa koob iyo nus wax yara maaragtay nuska oo xogaa waa yariyaha mana badna insha Allah ukunta yelowga iyo white ka soo kala saarnay qaybta cadna meelaan ku shubnay qaybta yelowgana meelaan ku shubnay insha Allah waxaan sameynaynaa yelowga marka hore ama maaragtay mid jaalaha ah ayaan garaacaynaa asxaabe aad u mahadsantihiin igu xiran intii faataxada ii soo mareysay waxaan leeyahay maanta inay la faraxdin waaye inaan la faraxdin waaye inaan maaragtay isla faraxna waaye aad baa idin jeclahay wallahi ma sha Allah maanta ilaa xalay waxaan ku dhahay anaka aad baa u faraxsanayn because anaga 3 bil ku dhawaad ayaa ilma naga maqnaayeen hadda way noo soo noqdeen Ilaahay ayaa noo soo celiyay qof bila aadana maaragtay wuxuu qoray iyo wax maaragtay Ilaahay qoray isku mid ma ahan maxkamadoodii ayaa shalay ahayd marka waan ku guuleysanay alxamdulillah xalay gurigooda u soo hiday meeshan waxaan ku soo daray sokortii asxaabay qaarna way ii hartay gadaal aan ugu darayaa marka xalay gurigooda hooyadoodii aabahood maaragtay ay la seexdeen ilmihii marka maasha Allah tabaarak waxaan leeyahay idinkana waxaan ku dhahay intii ilma laga heystay intii ilma ka maqan yihiin ama intii kala maqan ay Ilaahay ha isku soo celiyo Ilaahay maaragtay waxaan leenahay isku soo maaragtay ha isla kulmiyo macnaha maasha Allah waxaan idin leenahay ducada islaamka waa laga maarmaan hal isku duceeyo walaalaha sharafta leh insha Allah umada Soomaaliyeed dhulkeeda Allah nabad ha uga dhigo dhulkooda Allah u soo celiyo waxaan leenahay walaalo isku xiran Allah ka dhigo maaragtay dal shisheey maarkino waxyaabo badan oo dhibaatooyin laga kulmay walaalihii sharafta leh sokorta intay hartaan ku daraada maaragtay marka waalid la leeyahay maxaa la yiraahdaa ilmahaaga inaad haysid uma qalantid wallahi ma arkino anaga wadankeena lagama aqoonin marka maaragtay waa wax adiga aan lagu heyn ku raadsanasaan jeclahay because adiga wadankooda aad tagto Soomaaliya marka wax walba dul qaado waaye insha Allah asxaabay si kastaba waa kanad sokortiisaas u cadeynay hadda saliidan ku darsanaynaa insha Allah marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada waa inay la faraxdaan maanta happy waxaan ku dhahay happy family ayaa ka dhacday meesha ma sha Allah tabaarak oo 3 bilood maaragtay indha is saaren ilmo waxaan ku dhahay cunuga ugu yar oo jiro sanad gaarin oo 12 bilood oo jiro iyo hooyada la kala wada maxaad filaysin akhyaaray maxaad isleedihiin waxaan ku dhahay waa sheeko aad u yaab la soo maahan oo wax maaragtay laga xumaado oo wax aan la qaadan karin soo maahan marka waxay kastay ahaataba hada farxad guul reyn bay ku soo dhamaatay waa taasa markii aan garaacnay saliidii iyo sokortii iyo maxaa la yiraahdaa ukuntii qaybta jaalaha maaragtay insha Allah hadda waxaan ku soo darsanay caanaheeni maaragtay wax yarna waa reebanay inta badneedna waa ku soo darsanay insha Allah marka insha Allah taala ila soo dhaweeyay ilmaha eedada u ahay waxa inka maaragtay idin leeyahay idinkana soo dhawaada maaragtay anaga soo dhaweyntaas ilaa xalay ku jirnay idinkana hadda nagala qayb qaata asxaabteeda sharafta leh sidaas aan u garaacnay caanihii iyo maaragtay sokortii iyo intii kale oo maaragtay meesha noogu jirta iyo saliidii
okay hadda waxaan ku darsanay cusbadii yareed iyo waxaan ku darsanaynaa maxaa la yiraahdaa baking powder gadaal aan ku darsanaynaa waa carfisadii insha Allah marka asxaabay waxaan leeyahay daawasho wanaagsan oo wacan waxaan leeyahay janaalka kala kiciya laagta ha lagu qabto asxaabtiina la wadaaga share sii dhaha aad ayaa u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga oo nala wadaagaysiin waa in kaga mahad celinayna asxaabay insha Allah okay insha Allah taala asxaabay waxaan leeyahay ilmaha laga farxiyo caanaha intii hartay oo yarista aheed ayaan ku soo darsaday hadeertaan kulli marka insha Allah taala waa kaasa insha Allah asxaabay hadda waxaan ku soo darsanaynaa burki ayaan ku soo darsanaynaa inta isku darnaaday koobka caanaha ee 7 xabo ukuna iyo saliidii halaha ukun ay maaragtay qoyaan qaadato baan ku darsanaynaa laakiin 3 bakeeri oo bur kama badneen burkan isticmaalay kiilo ayaan furtay marka xoogay markii oo dhacaanka marka inta rabtay oo maaragtay sida qoyaanka ka rabto oo ku noqdo baa ka deysanaysaa marka insha Allah taala sidaas aan ku soo wadaayaa maxaa la yiraahdaa waa kaasa sidaas quruxda badan ayuu u egyahay asxaabteeda igu xiran waxaan leeyahay soo dhawaada channelkiina waa insha Allah hadda waxaan ku darsanaynaa asxaabay bakinkii hadda bakinkii aan ku darsanay insha Allah burkan waa ku sii daraynaa asagana sidoo kale marka waxaan sameynaynaa insha Allah keeg cajab oo maasha Allah ayaan u sameysanaynaa soo dhaweynta ciyaalka aniga isku meel ma joogno laakiin ilmaha xaafada anaga maaragtay ayaa baashaalayna iyo maaragtay ciyaalka waxay jecel yihiin doolashaha ama keega la sharaxo oo maaragtay wax macmacaanka lagu sameeyo marka waa u sameynayay sidii xaafada ayaan maaragtay ilmaha jooga siinayay okay asxaabay taas halkaas ugu soo dhamaanay si fiican ayaan u qasay kaas oo maaragtay kulli inmo tusin haddana ukunta qaybtii maaragtay cadeed ayaan maaragtay garaacaya sidaan ka dhigana waa arki doontiin marka xaafada ciyaalka jooga ayaan ka farxinayay ilmaha dariska dhan maxaa la yiraahdaa ilmaheyga kulli maaragtay keegeeni waa kana halkan ku jira hadda waxaan sameynaynaa ukunta qaybtii cadeed ayaan ku soo darsanaynaa asxaabay marka insha Allah taala farxada waxaan ku dhahay waa la isla wadaagayaa maaragtay dadka dariska oo dhan waxay dhahay ma sha Allah ilaahay haduu idin soo celiyo wallahi ma sha Allah waay intaas wax la siista la arkeeninbo hadalka wanaagsan xataa waxaa la dhahay waa sadaqo marka waxaan ku soo shubanaynaa saxanka waa kana asxaabay saxanka markaan ku shubnay fiinta yaran testis ku siinay hadhow markaa jirta dhexda bay ka soo bixi kartaa marka waa xareynaynaa dabkan gelina kaas insha Allah halkaasna waxaan ugu jiro insha Allah web creamkii insha Allah saxankan aan ku garaacaynaa caanaha maaragtay oo creamka ahayna waa kuwaana maaragtay insha Allah waa garaacaynaa daawasho wanaagsan waxaan asxaabta igu xiran insha Allah waxaa la yiri hadalka wanaagsan xataa waa sadaqa soo maahan marka insha Allah waxaa waaye hadalka wanaagsan xataa walaalka ku sadaqayso wax fiican waaye caanaha soo garaacaynaa insha Allah doolshadeeniyo soo baxdayna waan keenaynaa insha Allah asxaabay waa kana doolshadeeni sidaan inoogu soo baxday ما شاء الله كان قروح وايه إن بعادي ما أهان مركب وحنا ليه سو دواده channel كينا وايه واتكم هالسنتين داوشدين أصحابي waxaan sameysanaynaa kalarkii aan ku marin lahayn magaca ama waxa aan ku qori lahayn hadda meeshan biyo ayaa noo saaran biyaha sokor aan ku darsanay waxaa kaloo ku darsanaynaa cornfloor-ka waxaa waaye ma sha Allah wuu ku adkeynayaa sokortii iyo intaana isku karinaynaa asxaabay intaana maaragtiin oo waxaan ka sameynaynaa gel ama maxaa la dhahaa adiga wix magac inuu qori karo sidaas ayaan u qasaynaa waxaa waaye dab low asaar ama dab daciif asaar maxaa la yiraahdaa iyo ka dhagin salka insha Allah markuu karay labadan baaqule ayaan ku kala shubtay insha Allah waxa saas amal ka soo dhigay marka asxaabay waxaan sameynaynaa waxaan ku darsanaynaa food color aan haysanaa oo maaragtay pink iyo blue ah
marka labadan waa ku kala dareynaa marka si aan ugu sameysano magacyadii maadaama ay ahaayeen ilmaheena wiilal iyo gabdho marka insha Allah tacaala binki iyo waxaan ka kala dhiganaynaa blue waa kaasa hadartan waxaan ku darsanaa bluegi marka sidaas aan ugu qaseynaa labada kalar markaan ku soo qaso waa soo noqonaynaa insha Allah saxaabe wax alaal waxaan marsan lahayn ama ku diyaarsan lahayn doolshada waa soo diyaarsanay marka hadda waxaan sameynaynaa whip creamkii ayaan soo saaraynaa insha Allah creamkeeni ayaan marsanaynaa koo waa kaasa sidaas aan u gargaarsiinaynaa tartiibtaas aan ku wadanaynaa insha Allah waxa waaye waxaan ku dhahay team ayaan siinaynaa insha Allah marka asxaabay marka ku soo dhameeyo oo geesaha dhan soo gargaarsiiyo ayaan isku soo noqonaynaa wad mahadsantihiin insha Allah maasha Allah asxaabtay sidaan markaan mariyay sidaan u ekaaday sidan marka hadda waxaan sameysanaynaa waxaan ku soo qoranaynaa koo welcome ayaan ku soo qoranaynaa haddaba marka waxaan ku soo qoraynaa insha Allah welcome koo halkaas aan ku soo qoraynaa insha Allah waa ka saxaabay welcome ayaan ku qoraynaa insha Allah meeshan waxaan ku dhahayaa qurux aan ka soo dhigaynaa waa kaasa Moha Ibrahim iyo Maryama maasha Allah ilmahayga magacyadooda ayaan ku soo qoray waa ilmahan iyo dad u hay soo dhawaada insha Allah sidaas aan ku soo qornay insha Allah asxaabay markii wareysdata channelkayga seen shaqada insha Allah like noo saar subscribe noo dhe insha Allah tacaala maxaa la yiraahdaa waad mahadsantihiin sidaas aan ku soo wadaynay asxaabtada la sii wadaag waad mahadsan tahay idinkoo dhan insha Allah tacaala share waad mahadsantihiin waa kana sidaan ku soo wadaynaa marka hadda waxa waaye sharaxaad dhan waa saarnay waxaa noo dhiman inaan ku soo daadino midkaan u jeedaan shukulaato yar yar oo maxaa la yiraahdaa ama nanac ka rabta dheh waxaan ku dhahay kana ku soo daadinaynaa alaabteeni waa diyaar insha Allah tacaala asxaabtii sharafta leh ma sha Allah waa kana asxaabay wallahi waxaan ku dhahay ciyaalka afaarahan camal hooshoodu waayaan ku dhahay aad u jecel yihiin waa soo jaranay asxaabay waa kana sidaan inoogu soo baxday inaba caadi ma ahan lagama sheekeyn karaan ku dhahay doolshada qurux ayay ku soo baxday waxaan leeyahay idinkana waad ku mahadsantiin daawashadiina ilaahay ayaan u mahad celinaynaa mar walbo asaga dhibkeena asaga maxaa la yiraahdaa ka qaadi karo qof walbo waxaan leenahay insha Allah tacaala ilaahay u mahad celi waxaan leeyahay video inta kulmi doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh